سيدنا سنمضي. sanadkii alxudaybiya waxay muslimiinta oo uu hogaaminayo nabi moxamed sallallahu calayhi wasallam aadeen dhanka maka ayagoo doonaya inay soo cumraystaan hase ahaatee waxaa maka ku faafay warar sheegaya in muslimiintu dagaal iyo duulaan soo qaadeen nabiga sallallahu calayhi wasallam ayaa go'aansaday inuu reer quraysheed u diro ergey u sharaxa hadafka muslimiinta ee ah inay doonayaan in ay soo cumraystaan oo keliya waxaana markii hore uu doortay cumar bin khadaab oo ah saxaabi aynu wada garanayno geesinimadiisa maadaama reer bani cadi oo uu ka dhashay cumar bin khadaab ay xilligaas ku yaraayeen magaalada maka awoodna aanay u lahayn inay difaacaan wiilkooda haddii ay quraysh ku kacdo khiyaano ayuu cumar u soo jeediyey rasuulka sallallahu calayhi wasallam inuu asaga beddelkiisa u diro cuthmaan bin cafaan oo ka dhashay reer bani umaya oo ahaa junfada ugu dhaqaalaha iyo awoodda badan quraysh nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa qaatay ra'yigii cumar bin khadaab waxaana quraysh loo diray cuthmaan bin cafaan oo wada fariinta ah waxaan u nimid cumro ee dagaal uma soconno saxaabiga jaliilka ah ee cuthmaan bin cafaan ayaa gaaray magaalada maka waxaana abu sufyaan iyo odayaashii quraysheed oo ku hubsaday fariintii rasuulka sallallahu calayhi wasallam abu sufyaan ayaana u soo jeediyey cuthmaan inuu isagu dawaafo kacbada balse waa uu ka diiday asagoo u sheegaya inaanu dawaafaynin ilaa nabi moxamed sallallahu calayhi wasallam ka dawaafo kacbada quraysh ayaa isugu laabatay go'aan ay isku raacdo maadaama jawaab laga sugayo ilaa inta ay go'aankaas ka qaadanayaan waxay cuthmaan ku hakiyeen magaalada maka maadaama uu ka soo dahay cuthmaan waqtigii la filayey in uu ku soo laabto ayaa waxaa soo baxay warar sheegaya in quraysh ay dishay cuthmaan bin cafaan xilligaana waxaa dhaqan ahaa in ergada aan waxba loo geysan iska badaa in la dilo nabiga sallallahu calayhi wasallam oo ka carooday warka soo gaaray ayaa saxaabada weydiistay inay la galaan beecada geerida si ay ula dagaalamaan quraysh waana beecadii caanka aheyd ee qur-aanku soo hadal qaaday taariikhda islaamkuna u oqoonsatay beecatu ridwaan markii ay saxaabadu bilaabeen inay beecada la galaan rasuulka sallallahu calayhi wasallam ayuu suubanuhu gacantiisa duldhigay gacmihii saxaabada wuxuuna yidhi tanina waa gacanta cuthmaan waxaa xaqiiq ah inaysan beecadan dhici lahayn haddii aanu maqnaan lahayn cuthmaan oo aan la soo wari lahayn in la dilay laakiin inkastoo uu maqnaa masiirkiisana uu mugdi ku jiray haddana goobjoog ayuu ka ahaa beecada sayidka bashariyadda ayaana wakiil ka noqday booskiisana waxaa buuxiyey nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu ogaaday rasuulku sallallahu calayhi wasallam in haddii beecadan loo geli lahaa arrin kale cuthmaanna uu goobjoog ahaan lahaa uusan dib uga dhici lahayn in uu galo beecadaas ma dhacda inaan kayrka wakiil uga noqonno dadka aan ku saaxiibnay wanaagga marka aanay xaadir ahayn ma dhacda in iyadoo maalin sadaqa loo aruurinayo qof maskiin ah oo midkaan yidhaahdo tanina waa sadaqadii walaalkay haddii uu joogi lahaa wuu sadaqaysan lahaaye markii ay muslimiintu u socdeen qaswadii tabuug ayuu rasuulku sallallahu calayhi wasallam waayey kacab ibnu maalik markaas ayuu yidhi muxuu sameeyey kacab ibnu maalik ninka dhashay reer bani salama ayaa yidhi waxaa xabisay kacab ibnu maalik labadiisa go' iyo fiirfiirinta dhinacyadiisa mucaad ibnu jabal ayaa yidhi waxaa baas lahaaday waxa aad tidhi wallaahi rasuulkii allow kacab kuma ogi waxaan qayr ahayn xaqiiqadii kacab wuu maqnaa laakiin wuxuu xaadir ku ahaa qalbiga mucaad ibnu jabal radiyallaahu canhu nin ayaa ku yidhi mubarid oo ka mid ahaa culimmada naxwada hebel ayaa i aflagaadeeyey markaas ayaan dulqaad u muujiyey oo ka aamusay mar kale ayuu adiga ku caayey markaas ayaa naftaada ka soo qaaday tayda oo kale oo aan ka aamusay markaas ayuu yidhi aamuskaagii hore markii adiga lagu caayey wuxuu ahaa dulqaad aamuskii dambena ee aad ka aamustay markii la aflagaadeeyey saaxiibkaaga wuxuu ahaa khiyaano haddaba mar waliba oo naga maqnaado walaal muslim ah oo aan gobonnimadiisa naqaanno isku day inaad buuxiso booskiisa mar walibana xusuusnaw hadalkii rasuulka sallallahu calayhi wasallam ee ahaa tanina waa gacanta cuthmaan إلى أفق المعالي والثبات بعدل المنهج النبوي سرنا لنشرق بالدنا مثل الغداة